السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada walaalayaal meel kasta caalamka joogtaan walaalkiin Diri FX. Caawa waxaan rabnaa inaan soo gudbino candlekan bullish engulfing. Sababta ma kala candlekan bullish engulfing waa candle weyn oo momentum ah. Candlekan iyo candle yar oo bartamihiisa ku aadan. Marka candlekan sida badan sidaan ayuu u dhacaa meelaha wuxuu ka dhacaa lacagtu ay kala wareeg ka samayso waana must in uu candleku uu dhaxda uga aado candlekan kale oo weyn hadduu ka gudbo oo meelahan kale ama caaradiisa weegiisan dheer uu la siman yahay ama soo uu kor ka xigo lama soo qaadan karo inuu candlekii bullish engulfing uu yahay looma soo qaadan karo laakiin sometimes waxa dhacda asagoo candleku labada candle ay isla eg yihiin ama haddii kale mid uu yar yahay oo saan oo kale uu yar yahay laakiin uu caaradiisu meelahan oo kale ay timaado oo weegiisan uu dheer yahay ayay lacagtu kala wareeg samaysaa marka sida waxyaalaha sida uu dhaco iyo meelaha uu ka dhaco intaba aan isla tagno waxay u socotay lacagtan sell ayay u socotay sidaan ayay ahayd kor ayayna ka timid oo lacag hoos u socotay ahayd candlekan ayaa dhashay yarka ah oo beerishka ah oo yarka ayaa dhashay ka bacdi markuu dhashay waxaa dhashay candle weyn candlekii weynaay waa candle buy ah lacagtuna kala wareeg ayay ka sameeyay halkan maadaama candlekan yarka uu dhashay waxaa must ah candlekii signalka bixinay inuu kan yahay candlekii weynaay oo aad ku aqoonsanaysay inay lacagtu kala wareeg ay sameeyeen inuu candlekan bullish engulfing ka uu yahay lacag candleku waa inuu xag uga gudbin xagna uga gudbin waa inuu kan small noqdo kanna uu noqdo candle weyn asagoo beerishana wuu dhacaa oo hadda sida kan buluug halkan oo red ugu yahay kale asagoo buluug ah kana oo red yahay oo sidaan oo kale kan oo weyn oo kale halkaana uga lamaansan kan buluug ah wuu dhacaa oo sidaan oo kale u dhacaa marka maadaama uu candlekii yarka ha dhashay sidaan ayay lacagtu kala wareegtay okay haddaba sidee ayaan ku ogaa karaa lacagtaan inay tahay candlekan inuu candlekiya waxaa soo xisaabinaysaa inta candle oo meeshan ka dhalatay maadaama candleku uu candle sell oo ahay candleka ugu dambeeyay oo candlekan weyn ahay candlekii ku xigana oo saan u yaray candlekii kale oo aad rabtay inuu sell ku sii aadan oo sidaa noqdo lacagtan waxaad ku tashanaysaa inuu kala wareegto ay buy aad okay mar waxaad leedahay candlekii maadaama candlekii yara aad aragtay candlekii weynaan aad aragtay lacagtii wangala oo candle buluug aan arko oo bullish ah maya candlekan markuu xirmo way ku xaqiiqsanta lacagtan inay noqotay lacag buy ah candleka markuu xirmo ayaad gali kartaa sidaas ay lacagtu ay buy ku aad okay sellkan waa candleka sellkan waa sidoo kale asagana waa ka soo hadli doonaa qaabka uu dhaco aan isla tagno suuqa iyo qaabka meelaha uu ka dhaco okay lacagtan hadda waa lacagta goldiga waa kan suuqa sidaan ayuu noqday sellkan ayuu ku socday intaan ayuu ku socday candlekii aan idin sheegay waa kan saan u dhashay candlekana dhashay ka bacdina buy aad candleka markuu xirmo inaad markaas aad u raacdo buy waa intaan ayuu dhaqaaq intaas ayuu dhaqaaq meeqa kuni above okay meelaha uu sellku ka dhacana waxaan ka soo hadli doonaa isla asbuuca soo socda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalkiin Diri FX la wadaag walaalka videogan si uu uga faa'iideysto